بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن داودياشا بيج كان انترنت كل هاي فيسبوكيغا كوسو دوادا كناسو درخا برنامج كان انا ugu magac daray isxafinta waa barnaamij inta badan aan ku eegi doono arrimaha ku saabsan xilligan ka taagan Soomaaliya waxaa jira dad badan oo iyagu colaadi ay ka dhaxayso isla markaana dhibaatooyin kala duwan soo kala dhaxmartay barnaamijka waxa igala qayb galaya daawadayaal saaxiibkayga hadda aad u jeedaan Ibrahim Maxamuud Diblaawe Ibrahim marka hore ku soo dhawow barnaamijkan page-kayga isxafinta aan ugu magac daray aad baad u mahadsantahay cali ibraahim cabdullaahi suxayfa aad baan ugu dhawahay page-kaga barnaamijkan isxafinta waa barnaamij boqolkiiba boqol bulshada Soomaaliyeed wax u taraya loona baahan yahay in la iscafiyo waa wax meesha ku jira kitaabta quraanka intoo dhan axaadiistii ayaa ku soo degay quraankii ayuu qayb u ka yahay in la iscafiya waa wax muhiim ah oo bulshada uqdada inay iska daayaan oo in la iscafiya aniga ahaantayda aad baan u taageersanahay cali waxa tahay qof ugu weyn qof markasta jecel in bulshada uu soo kordhiyo wax faa'iido ah qofka wanaagiisa iyo xumaantiisa waxa lagu gartaa halbeegiisa inta uu gaarayo run ahaantii waxaan kugu tilmaamo ma aqaano laakiin waxa tahay qof jecel in uu bulshada xil waliba oo u qabto wanaaga marka waxaan dhihi lahaa boqolkiiba boqol barnaamijkan waa barnaamij aan taageersanahay aniga Ibrahimow barnaamijkan waxaan uga hadalnaa arrimaha ku aadan in dadka iscafiyaan maadaama ay jiraan dad badan oo qaladaad kala duwan iska galay oo loo baahan yahay in barnaamijkan ay qayb ka noqdaan maxaa leedahay dadka inta badan qaladaadka iska gala barnaamijkan talo noocee u jeedinaysaa horta markii xanaaq oo meesha uu ka dhaca labada qof ay isku dhacaan haddii ay saddex habeen ay dhaafto waa wax karaahi ah ilaahina uusan raalli uusan ka ahayn ummadiisana uu nabigeena maxamed uu kala dardaarmay marka waxaan dhihi lahaa la iska daayo uqdada iyo cadowtooyada la isku qaadaya iyo naceebka bulshadana waxaan dhihi lahaa barnaamijkan halaga qayb qaato qof waliba oo uqdad u qabo qof kale ama u xanaaqsan ha iska cafiyo ilaahay dartii ha isaga cafiyo barnaamijkana qayb ha ka qaato ani ahaantayda qayb ayaan ka ahay barnaamijka ani cali oo run ahaantii anigoona isfaaninaynin weliga qof uqdad umaanan qaadin haddana uma qaadi doono intii aniga wax iga tabanayso ama wax ii qabto waxaan dhihi lahaa iga raali noqdo boqolkiiba boqol bini aadan ayaa nahay naf ayaa nagu jirto hadda ayaan kula hadlayo ayaan nafta inaga bixi kartaa waxaan dhihi lahaa iga raali noqda aniga raali ayaan idinka ahay ilaahay dartii aan isku cafino bahagaag Ibrahimow inta badanba barnaamijka waxaan uga hadli doonaa iscafinta haddii adiga Ibrahim ahaan muddada aad joogtay intaa nooleed waxaa jira caqabado fara badan oo kusoo wajahay haddana dad badan qaladaad ay kaa galeen adigana qalad ka gashay barnaamijkan muuqaalkan page-kayga oo iscafinta aan ugu magac daray oo aan ku baahiyo oo asxaabta kala duwan haddii qaladaad ay jiraan asxaabta Facebook ka gashay asxaabta kale iyagu aad xaafada aad isla degantihiin kuwa kaleba iyagu maxaa leedahay aad baad u mahadsantahay waxaan dhihi lahaa iga raali noqda boqolkiiba boqol raalli ayaan idinka ahay waxba idinma qabo waan idin cafiyey qof waliba aan isnaqaano qofkii aan wax ka galay qofkii aan dhibaato u geystay ilaahay dartii ha igu cafiyo anigana qofkii wax iga sameeyey ana aan wax aan ka tabanayo ilaahay dartii baan ku cafiyey ayagana sidoo kale in ay cafiyaan cali ibraahim oo kugu ammaana tan waa mid aad ammaan iyo bilad sharaf aad ku mutaysanayso hagaag ugu dambeyn dadka hadda naga daawanaya muuqaalkan aan ugu magac darnay iscafinta ugu dambeyn iyagu maxaa leedahay ayaga waxaan leeyahay barnaamijkan waa barnaamij munaasab ah loona baahan yahay in qof waliba oo muslim ah inuu ku fikiro qof walbow ka qayb qaado ilaahay dartii isaga cafi qofkii aad colaad kaala dhaxayso ummadda Soomaaliyeed dalkeena burburka iyo dhibaatada waxaa ka bixin kara
dhalin isku calolfiyo bulsho isku calolfiyo ha oo lees cafiyo ilaahay dartii loo isku dalkan wuxuu horumar ku gaari karaa in dhammaan ummadda muslimiinta iyo Soomaalida is cafiyaan yihiin kuwa isku calol saafiya ah bulshada waxaa lagu yaqaanaa isla dhalatay ama walaalaha ah in ay is cafiyaan bulsho is cafiya Soomaali hadii aan nahay aan is cafino aan biri ka maalin meel hadii aad tagto qofkan waxa waa walaalkaaga oo kaliya ma noqonayo qofka dheer waa walaal Soomaali ayuu kula yahay hatta qofka hadii uu Soomaali ahayn oo qalad uu ka galo iska cafi ilaahay dartii uga raali noqo adigana maalinta aakhira ayaa ku liibaani doontaa marka inta ayaan ila caliyo hagaaga guud ahaan daawadayaasha iyo asxaabta kaleba waxaan barnaamijkayga gaarka ah aan uga hadlayay iscafinta waxaa igala qayb galay Ibrahim Maxamuud Diblaawa oo hadda aad u jeedaan anigoo Cali Ibrahim Cabdullaahi ayaa barnaamijka muuqaalkan page-kayga ku bilaabay oo si rasmi ah ugu soo baahinaya asxaabta dhamaantiin waxaan idin leeyahay haddii aad aragtaan barnaamijkan waxaad tiraahdaa share like na sii saar comment na ka soo dhiibo asxaab kale oo cuqdada isku qabtan iyaguna waxaan leenahay nala wadaaga afkaarihiina kala duwan waa tixgelin doonaa barnaamijkan waan idinku marti qaadaynaa dhammaantiinba waad nala soo xiriiri kartaan waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin dhammaan muslimiinta iyo Soomaalida qarannimada iyo wadanimada jecel ha is cafiyaan